magaalada Hargeysa ayaa xilli la dareemay qabow aad u daran taas oo dadka badankiisuna ay arintaasi dareemeen balse sida gaarka ah waxay arintaasi u saameysay oo si badan iyagu u dareemaya caruurta yaryar ee darbi jiifka ah ee ku nool magaalada Hargeysa waxaanu barnaamijkan idinku tusaynaa oo aanu idinku soo gudbinaynaa muuqaalo dhab ah oo ka turjumaya xaaladda ay ku nool yihiin caruurta darbi jiifka ah waa mid kamida arrimo uur ku taalo kugu reebaya markay indhahaagu qabtaan xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin caruurta darbi jiifka ah ee ku dhaqan Soomaaliland dhibaatada hooyo iyo aabba la'aanta waxa u dheer duruufaha kale ee noloshooda ku gadaaman waxay wehelu yihiin cabsida gaajada dhaxanta iyo daryeel la'aan dhinac kasta oo nolosha ah aan leeyahay wax noo qabta oo na hagaajiya oo na dalyeela oo na hagaajiya dhaxan baa la dishay giyaar baan seexana habeenadan dhaxan baa soo dhaxay bilaa soo dhacday dhaxanta way soo dhaxaysaa kolba bil baa soo dhaxaysa xalay dhaxan baa yahay oo qarqaray waan dhintay way dhimatay nool ma jirto ilaahay baan leeyahay xalayna dhaxantu ku darnaa habeen hore iyo xalay dhaxantu ku darnaa waa isku kiriirnay marka in wax nala qabto bustiyaali waxa nala go'an baanahay inkastoo ay maankaaga taabanayso duruufaha adag ee ay caruurtani ku nool yihiin haddana waxa warwarka waayaha ay ku nool yihiin sii badinaya iyada oo si isa soo tarayso ugu soo badanayaan waayadan dambe hablaha darbi jiifka noqonaya kuwaasi oo uga nugul wiilasha waxa weeyaan way danqaysaa bay taabanaysaa runtii waxa weeyaan wax ma aha kaliya inoo yaalee qof wala dameerla wax inuu damqaday tahay weeyaan haddii aynu daryeeli weyno haddii aynu u damqan weyno haddii reer Soomaaliland dawlad iyo shacab gaar ahaan ganacsatada ay xil iska saari waayaan caruurta halka darbiga xabagta ku cadlaysa maalintiina qorraxda habeenkiina ay ku dhacayso dhaxanta iyo dhaxanta badbaadi maayo in ka yara guriga ku jira hoostiisa deerka loo hayo badbaadi maayo in ka yara gaariga xabsiinta loo geeyo waxa weeye waa jiil soo koraya waa caruurta kama nasiib badna ku weyn aan guriga ku haysanaa iyaga nolosha iyo waqtiga u caawin waayo ama waa hooyadii abood baa kala tagay ama waa agoon ama waa ilmo bafarti family fuqaraanimo ama waxba haysan soo saaray oo u soo baxay dibadda jeclaa inuu guri ku noolaado wax la baro arrimaha maskaxdaada xusuusta ku reebaya markaad caruurtan la sheekaysato waa sida ay rajo uga qabaan in marun mustaqbalkoodu hagaagi doono way jecel yihiin inay wax bartaan laakiin noloshu uma saamaxayso أنا هذا بتشيف كحيرانينتا نشيلاتيسا وحنو بعانينا وحنا لبرا وحنا ناقته لحميه يبالي غير كان سحنا الشيخ شيلاتيسا قبل كاميرا دو بابا أنا دي بسوعنا لولا مدحدا يوسيرده iyo xilmaaninta wayna wax nala qabtaanay ayaana xayraamiintii baana inay wax loo qabtaan badoonina waxa in badan rajo laga qabay inuu dhameystirmo xarun loogu tala galay in lagu xareeyo caruurta darbi jiifka ah oo ay waday hay'adda odxa balse wali waa arin la sugayo kulli caruurtaasi wax kuwa u nugul ee fanaanadka ay gidaarka joogaanay mar walbana u baahan meeshaasi deerkii u dhisan yahay laba hool baa ka dhisan mas'uuliyiin ka dhisan jikadii ka dhisan tahay laakiin wax loo wixii kaabayaashii nolosha dhan uma dhaca لاشان يوم هسكح رماه تشرمه وحوي المي وينو عافمات هلا وينو وحبرشك هلا وينو هو يكون على عنتك هلا وينو بين نظيف كهلا أنت ما أنت لو دياريو وبيفعل بقول لك تعرض على لا ولا حاجة runtii waa muuqaalo naxdin leh oo qof kasta oo bini'aadan ahay uu ka muujinayo dareen bini'aadantinimo haddaba qof kasta oo daawada muuqaalkan iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta waxa looga baahan yahay inay xaaladan wada dareemaan oo si weyn gacan looga geysto waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaysay Nimco Samriye VOA Hargeysa Asagi kahara